cabdirashiid ducaale qambi wasiirka howlaha guudguriyeynta sidoo kale dhulka u qaabilsan xukuumadda Soomaaliland oo ay welinayaan saraakiil sare oo ka tirsan wasaaraddaasi ayaa markii ugu horeysay daboolka ka qaaday in xukuumadda Soomaaliland ay gabi ahaanba joojisay dhulkii ku yaalay raasiga magaalada Berbera isagoo tilmaamay inuu amarkaasi ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray dhulka raasiga Berbera oo saaka wareegtadiisu soo gaadhay dhulka raasiga Berbera cid isticmaali karta iyo cid warqada u haysatay ama hore meel waraqa uga haysatay cid isticmaali karta iyo cid awood u leh iyo cid ku tagrifale karta ma jirto cidii warqad u haysatay iyo cidii ballanqaad u haysatay iyo cidii amar kale iyo si kale u soo gashay dhammaan dhulkaasi intuu leegyahay oo dhul lagu qiyaasay 3,000 iyo dheeraad oo mitir ah cid isticmaali karta iyo cid la siiyay iyo cid awood u leh ma jirto wuxuuna ka hoosaaray madaxweynuhu dekreeto saakadan na soo gaadhay oo dhulka ka mamnuucday cid kasta oo sheeganaysay inuu yahay dhul dawladeed oo hantida qaranka kamida cid isticmaali kartaana aanay jirin. warfidyeenada ayaa weydiiyay mas'uuliyiinta wasaaradda howlaha guud sababta kaliftay iyo sidoo kale waxyaabaha ay bixin karaan hadiiba ay jiraan dhaqaale laga qaaday dadkii hore loo siiyay dhulkaasi. Faisal runtii wax kasta wixii sharcigu u baa horta muhiim ah madaxweynuhu burin karaa wasiiruhu burin karaa sharciyan warqada dadka hadii la siiyo horta siinayo iibba kala duwan iib badana dadku markuu iib yahay buu hanti galiyaa qof laakiin waxaan ku siiyay lacagta iga gashay kulay waad garanaysaa oo waxa weeyaan laakiin hadii ay jirto waa qasab dawladdu inay wixii ka soo baxaba u bareedho u dhabar dhigto runtii kulay wax weeyaan khibrad baa wax kasta oo dhacay adduunka laga qaataa iyo way aragnimo hore umaynu garanayn in raasigan ilaahay inoo dhigay naga hayo ciida iyo dhibaato oo dhan uu naga hayo laakiin waxa la ogaaday in raasigii ciidii ay maraakiibtii joojinayso oo ta ku dhacdo ciida ku dhacdo raasigu lagu guray lagu buuxinay dadku buuxinayaan marka ku qaadanaya wuxuu geenayaa xaqii maraakiibtu istaagayeen marka dhibaato ma haysano qalabkii lagu gurayay ciida marka khibrad badan oo laga helay kadib ayaa horta loo joojiyay raasigaas markii la ogaaday inay faa'iido inoo ahayd laakiin imika la ogaaday inaanay wax faa'iido lahayn. cabdirashiid ducaale qambi wasiirka howlaha guudguriyeynta dhulka ee Soomaaliland oo sii wada hadalkiisa ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in xilligan hakad galiyeen muddo ku siman 4 bilood bixinta dhulka danta guud ee Soomaaliland isagoo walaa xoogan ka muujiyay kala iibsiga dhulka oo tilmaamay inuu xilligan marayo qiime aad u qaali ah oo saameyn ku keeni kara shacbiga iyo sidoo kale xaaladda guud ee amni ee Soomaaliland. ummadda reer Soomaaliland waxaan la socodsiinaynaa sidaa inaan 4 bilood soo socda wax dhul la qorsheynayo oo meel maraya aanu jirin ama beeraley ha ahaadeen ama dhul dadku gaaray ha ahaato ama beeraley magaalada ka baxsan ha ahaato oo qorsheyni ku dhex jirtay in la joojiyay 4 bilood dawladda hoosena wixii aanu xaq ugu leenahay inay noo soo gudbiyaan baanu ka sugnaa si nabad qabto oo gobonnimo leh waxaan maqlay oo shalayta soo gaadhay oo iyo xalay fiidkiiba in la wado wasaaradda howlaha guud iyo dawladda hoose inay isku dhacaan oo wax arrimo noocaas ah isku dhacanaga dawladda hoose ama wadno kuma tala jiro dalka aynu hagaajinay aan leenahay idinku waxa sharci u leedahay qaataanu leenahay oo fuliya anaguna wixii aanu sharci u leenahay inaanu qabanno oo ka shaqeyno oo fulino oo nadiif ka dhignaano leenahay. wasiirka ayaa sidoo kale hadalkiisa intaa ku sii daray inay dabagal ku sameyn doonaan dhulka danta guud ee hore u bixiyeen xukuumadii hore dhulka waxyaala qarsoona ee dhul la iska bixiyay meel aanan ilaa iyo hadda la gaarin oo amar darro ku baxay iyagoo qudhooda waanu daba soconnaa waa daba gelaynaa wax alaala wixii sharci darro ku baxay dhul dhismo meelo aan sidii shuruucda loogu talagalay la waafajin ama dhismo ha ahaado ama dhul ha ahaado wixii laalaab ku jira wixii la dhacay wixii mugdi la geliyay wixii la tirtiray la masaxay kulli waanu daba soconnaa waana cid kasta oo sharci darro ku haysata iyo cid kasta oo aan sharciga waafajin iyo cid kasta oo dhul dawladdu leedahay masaxday iyadoo ku dhow waxyaalaha noocaas ama iib khaldan ku baxay ama si dadban loo meel mariyay iyo qudhooda diiwaan gelin
iyo dabagal iyo xaqiiqa yaanu la daba soconnaa. Faysal Maxamed Aadan, Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.